على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ثم أما بعد وسورة البقرة تفسير كذا هي المريني آيات السقالية فرطا قال الله تعالى إلهي بأوحل وإذ نجيناكم واذكر نبي محمد وحد حسطاه أما واذكروا إذنكم وحا حسطان إذ نجيناكم مركان وذكرنا بدقليني من آل فرعون قلديس ويسوون كجرة يصومونكم وحيد الدرسينيين سوء العذاب عذاب كيس أوحن والله فسر عذاب كأوحن وحا وهاب إلهي فسري يذبحون أبناءكم wiilashiinay gowracayeen wayastaxyuuna nisaa'akum dumarkiinana weydaynayeen wa fii daalikum arrintaa waxaa idinku jira balaayo weyn oo min rabbikum ilaahiinna xaggiisa ka ahaatay cadiimun oo weyn waid wakti xusa mar kale faraqnaa aanu kala jarnay bikum idinka daraaddiin albaxr baddii baanu kala goynay فأنجيناكم وانو إذن بدبادين وبيه بدا أيانو إذن دافني يعدو قيبا وأغرقنا آل فرعون قلدي سنواه لاقني ويسوي كترة وأنتم تنظرون إذن كويقية وحمرك إلهي وضع سبحانه وتعالى قصدي يضع عبر كذا عشر هذه الدروس هذا له reer banu israa'iilna hore waxaynu soo xusnay intooda badani dee inay bilaa khayr ahaayeen oo qur-aanku cadaaladda aada buu ilaaliyaa intooda wanaagsan ilaahay wuu xusay subxaana wa tacaala laakiin inta faraha badan waxay ahayn dad sharwadeena waxaad ka garanaysaa siduu qur-aanka kariimka ilaahay ugu sifeeyey subxaana wa tacaala ومر وحو حصي أخلاقيات كودا مركو قرآن كو ورميي شدة عداوة تدك الشهادة إسلام كعداوة وهيا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وتدك عداوة بضم بيلها اليهود تدك إسلام قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نعيشيه أفكار كسب كبعية دين تاني كلا دقالما ينطتك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى دين تكبح ذو توضر رالي نقش مجره انت الدون تبا تناسل لكن ماشا لقوة ضوا ماشا مركلا القرآن كوحو كوئي دليله هذا يسوق صوبا لقيا نبرية كتاب كي قيمها بالضاء إلا السيئة توراة يبدلين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كتاب كي إلها يفهم إياه وقام بيبدلين وقعمها يكون قرآن مركلة قرآن كوحة حصي آيات كان soo socda aynu ku arki doono iyagoo kitaab la inay hadana ka bareereen ciidan ilaahay heyniya sanamyaalida caabudaan وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون انت نبي موسى والتوراة iyo kitaabkii ugu maqnaa ayaaba dib la samaystayba وقالت اليهود عزير ابن الله afka kala qaadeen oo waxay yiraahdeen ninka Cusayr la yiraahdo nin waliyo wanaagsan haaba yiraahdeen waaba ina ilaahayba iyaguna way sii wadeen oo waxay yiraahdeen nahnu abnaa Allah wa ahibbaa annaguna ilma ilaahay baanu iyo ku jeclaa nimankii kitaabka la siiyay iyo diinta halkaas ay ku dambeeyeen mareen nashrul fitnati wal fasad adduunyada meel ay joogaanba waxay la taagan yihiin inay dadka isku diraan oo mar walba waa dadka asalka u ah ummadaha in la qaybiyo
si quwadooduna u jabto loona xukumi karo kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah wayascawna fi lardi fasaada wallahu laa yuxibu lmufsidiin kolba dabbay soo shidaan baa ilahay ui barig iyo galbeed adduunyadu way qiiqaysaa uun kooxaha ay leeyihiin qarsoona kala duwan kolba maamulada iyo digtaytarada iyo waxaas ayaa isxambaar ku yihiin oo meesha marka loo sii dhabagalo waxaan qiiqa ugu wacan gacantoodunbaa ku jirta ama iclaam ha isticmaalaan ama dhaqaale ama dad iyaga gacaltooya ay ka dhaxayso alghayratu walxasad wa cadamu xubi اlkhayri lilmu'miniin aada bay ugu hinaasa badan yihiin dadka shahaadanaya waana dadka ugu xasad badan in tamsaskum xasanatu tasuuhum wain tusibkum sayi'atu yafraxuu biha haddii shay wanaaga ah heshaan aada bay uga xumaanayaan haddii balaaya idinku dhacdana way ku farxayaan ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم وعلى الله خيره دين يدويه شاه آد بون عبي قرآن كوحة وكتل بامي نقض المواثيق والعهود بلل جبيه إن عانكو يهي دي مرار بدن لا يدهد وحبال الله قرآنية ama iyaga iyo cid kale la heshiisiinaya horay waxaad ka sii ogaanaysaa heshiiskaasi inaanu fulayn ilaahay baaba cadeeyay subxaanahu wa tacaala aw kullama caahaduu cahdan nabadahu fariiqu minhum bal akharuhum laa yu'minuun markastay ballan qaadaan way ka baxaan fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya waxa lagu nacdalayba waa ballamahay ka baxaan الاستهزاء بالدين وشعائره calaamooyinkoodu qur-aanku soo bandhigaynu ku baranayna waxaa ka mid ah diinta ilaahay iyo dadkeeda waa kuwa ku jees-jeesa ama magacyada u bixiya iyo calaamadaha diinta ilaahay oo lagu ciyaaro magaca ilaahay magaca rasuulka oo kabaha lagu qoro ama xamaamada ama meelo xunxun iyo magacyo xun oo islaamka loo bixiyo يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء لماذا كتابك اللي هدنا إذا كل عيارة إذا كل ديلية ده إذا كل قاعد كل جنينا بقى الهول قضب كالسجالات أكل الربا والمال الحرام وحيابها أي عان كويه وحكم ذا الربا لعناء يحرام iyo xoolada la boobo iyo adduunka dhaqaalihiisa isbaarooyin loo dhigto akoonnada waxa soo maraan waa la hubinaya halkaas uu ka soo wareegaya waxa la waxaas wax xaaraanta iyo boobka xoolaha ummadda iyo laaluushka iyo ribada وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وحضر كيسا يدا يودق دقيان waxaa la yidhaha dembiga xaaraanta cunideeda waaakhdihim الriba waqad nuhuu canhu waaklihim amwaal الnaasi biاlbaطil riba cunayaal wey dadka xoolahoodana xaqdaray ku cunaan markaa ka xoolihiisa yidhaahdo baanankoodan ku ilaashanayaa waxa weeye isagoo nool bay qaadan ama markuu wafaado wuxuu qur-aanku kaga warramay qaswat اlqalbi haddii ciduun qalbi engeg lagu sheegi karo inay yuhuud tahay فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بلن جبنت على قلنا عضلي قلبك نو قلفي قلبك إلهي وقفك نو قلبك قنبضي الدين يا إيمان بك قلفي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة آيات أفريت الضواتم إنكو أركي سورة إن شاء الله وقلب إلهي وتلمامين ودقح اللي ما كدريه dhagax marka raja ma taalo inaad ka sugtaa aljubnu wa hubbu dunya tilmaamu quraanku ka bixiyo waxa kamida aynu iska ilaalinayno adduunya jacayl iyo fulaynimo diiwaan nimankii markii ilaahay uu qudus xoreeya waxay yiraahdeen inna fiiha qawman jabbaariin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhrujuu minha
nimanka meesha fadhfadhiyaa way kuuskuusan yihiin waa niman buurbuuran oo xoog weyn jees-jeeskooda ilaa ay ka baxaana ma gelayno meel la haysta miyaa laga baxaaba miyaa la isa siiyaa dhul iyo dal dee aflagaadadoodina waxay gaadhay fadhab anta warabbuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun adig iyo ilaahaagu muuse la dagaalama annagu waanu sii fadhiyaya asxaabtii nebi maxamed ridwaan ullaahi calayhim nebi maxamed waxay ku idhaahdeen markuu howlgelinayay dagaalka annagu sidaa ku odhan mayno laakiin afarta dhanba waa ka dagaalamayna badda gal haddaad tidhaahdo waa kula gelaynaa waxdatuhum daahiriyatan waxaqiiqatuhum ikhtilaaf iyaga laftigoodu qaybay la yinaado fara badan qofka u dhabagala ama xaaladooda la socda islaamkunbay u midaysan yihin ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiica waquluubuhum shataa muuqaalkay ka midaysan yihiine laakiin ma midaysna baa ilahay uhi dhab ahaan adillatu walmaskana sida aayaadkan soo socda xoolo badan ba ha haystaan laakiin yahuudi waa faqiiru qalbika faqiir وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله waxa markaa halkaa qur-aanku ku soo gebagabeeyey xaajadaas siraaca iyo lagdankan inuu mustamir yahay dadka iimaan kale dagaalkay kula jiraan weligii wuu soconayaa walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu hadday karaan weligood way idinla dagaalamayno hadday diinta idinka celin karaan wey waxba idinla hadhi maayaan suuratu israa waxaynu ku gaari doonaa in maraaxil ay mari doonaan laba jeer inay adduunka intay joogaan soo bixi doonaan ay awood yeelan doonaan marka hore goormu ahaa markasta dambe waa goorma marka hore inuu tegey bay culimadu u badan yihiin marka dambena uu soo socdo oo hasiimada ama jabitaanka labaad uu soo socdo iman doono waqadaynaa ilaa bani israa'iila fi lkitaabi latufsiduna fi lardi maratayni walataclunna culuwa kabiira markii hore iskabriyeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta ayaa ilaahay uu ku jabiyey ama niman ka sii horeeyeyba oo qabla almiilaad ahaa bukhtunasar iyo marka labaadna wuu usoo socdaa siduu nebigu ku bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam cumuuman waxaynu uga jeednaa in qur-aanku siduu iyaga usoo bandhigay ama aada ku baranaysaa waa sidaa qofka markaa warbixinta ilaahay hayaa cid kale waxba weydiin maayo markaa rabbi waxa uu tilmaamay waxyaabuhu ilaahay ugu nicmeeyey aanay ka mahadnaqin waxaa ka mid ah inuu ka badbaadiyey fircoon iyo qoladiisii wax ilaahay uu ku siiyo waxa ugu fiican cadowgu horta kaa badbaadiyo cadowga in lagaa badbaadiyaabaa barkhadda u weyna horta markaa qisada fircoon iyaduna inta faraha badan waxay dhex socotaa qisadaa nebi muuse iyo fircoon oo dagaalkii ay wada galeen iyadoo la xoreynayay reer banu israa'iil oo loo gurmaday lidaalik baa ereygaasi 70 jeer buu isaguna kusoo noqon doonaa qur-aanka dhexdiisa halkana u horeysa waxaana u dambaysa suuratu walfajr وفرعون ذي الأوتاد intaa ka dhaxaysa 7 meelood ayuu soo noqon doonaa ereygaas waxaanu u taagan yahay alistibdaad siyaasi dictatornimo waxa la yiraahdaa ama kalitalisnimo haday waxun taraysay meel gaadhayso dee fircoon baa la yimo ilaa ilaahnimo ku daray halkay ku dambaysay waxay ku dambaysay intuu biyaha cabay oo liqay oo badii cabay sideen arki doono inuu yiri aamantu billadhi aamanat bihi banu israa'iil ilaahi reer banu israa'iil rumeeyeen baan hadda rumeeyay ilaahayna uu ka diiday wuxuu yiri falyawma nunjika bibadanik litakuna liman khalfaka aaya maanta war kale ma jiree baktigaagu baa banaanka la soo dhigaya iyagoo eegaya ayay jinaas baktigii fircoon halka ku arkay reer banu israa'iil وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ونعمة هي لمن كيد الله يني عذابك كلون إذن لنسيي أيانو إذن كنا بدك للنبي الهو مرك هذه يشير إلى هاي والصدا وهذا يريضا نجيناكم يساسان صمين ولا يعد موه لسيل هاي صدا العالم مرك قاركود قفك إسك أخرستا قرانك إن كوي رأت كاتو وسويدية يا إلهي وهلينية
markan uu leeyahay saasaanu yeelay waxa loo isticmaalaa ereygan oo kale carabiga mucadimu nafsi cidda naftiisa weyneynayso ilaahay wana subxaana wa tacaala ayaa odhan kara saasaanu yeelay markaa maca kibriyaa'ihi wa cadamati waa isweyneyntii ilaahay oo xaqu lahaa mooyaane cidi kuma ladhna cadaabka wuxuu uu fasirayoo yudabixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum waxaa ilaahay uu ku fasiray inay ahayd wiilashoo la leynaya iyo hablahoo la daynaya yudabixuuna waxay tusinaysaa dilku inuu aada u badnaa dadka maxaa lagu leynaya waxa lagu leynaya muuse ayuu ka soo bixi had iyo jeer madaxda mufsidiinta waxaa ka agdhow faaliya ayaa ka agdhow dadkaan isku kalsoonayn wuxuunbuu dhegadhegeeyaa qeybka wuxuu leeyahy maxaa la yidhi maxaan ku dambaynaya maxaa igu soo socda ila kalsoonidaa ka lunsan marka faaliye iyo ilaa kuwaa dimuqraadiyadda sheeganaya maanta guryahooda ay uga taliyaan ummadahooda faaliya unbaa ku jira iyo sixir leh marka kii baa yidhi muusa soo bixi doona mid madaxtinimadaada sabab u noqda inay meesha ka baxdo dee maxay u iman buu wixii la badee aan layno oo ninka xal waxaa ka dhigay ummaddan aan gumaadno dumarkana ha la daayo innagaaba ka dhaliyo qaar innagaabaabay dhali doonaane gaaladu had iyo jeer waxa kufriga la yidhaahdo waa dabeecadihiisa waxaad ogtahay taariikhda islaamka haddaad dib ugu noqoto xuruuba saliibiya ama duulimaadyadii ay gaaladu wadeen marar badan baa dumar badan oo 10 kun oo hablaha muslimaadka intay qabsadaan ayay ka dhali jireen dad ay leeyihiin markaas annaga inaga farcamaya Bosnia wal Herzegovina ayaad ogtahay waxay ku dambeeyeen ummadaha marka la duleysanayo inta dhaqdhaqaaqda la laayaa inta maatida ana jeebka lagu ritaa saasa lagu gumaystaa taasa lagu hayay وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أرنتم بلاء وين بايدين كجرت إلهي بايدين كردي واحد وح امتحانه مركا وحويان إباتدو عدو كسميني وحكروا علماء قاركودو كفسريان بلاء من ربكم عظيم نعمة وين باهي تاس والنعم إنه إذا كنا بدقل يعدو قاصابا نعمة هيدبا إلا عيد كلاو قرمنا يسمي جري نعمة أنا وحب بلاء الله قلت المامو إلى هاي وش هاي dee waxa daba socota nicmada hadii la mahadnaq way balaa daba socota nicmadu sideedaba niqmay noqotaa musiibo iyo mushkilad bay noqotaa hadii mahadnaqiman waayo iyaga laftigoodii kuma mahadnaqine dee kibir bay ka dambeysiyeen caalamkana maanta waxay ka wadaan taa fircoon uu sameeyay bay ku wadaan dadka muslimiinta aad aragtay ee xaqayaan baabiinayaan وإذ فرقنا بكم البحر nicmooyinku ilaahay siiyay waa badbaadadii oo intaan horta wax ku kordhin in lagu badbaadiyo balaayada laga dul qaado nabadgelyo aad hesho ayaa wax walba ka horeeya baad waa sababiya faraqna al-bahra bisababikum badii waxaan u kala dilaaciyay daraadi meeshay tay badu ma cayimin laakiin waa dhulka lagu dagaalamay la isku hayay ayagoo guurayo geediyo fircoona daba socdo daba ordayo ayay badii isku soo gudubtay badii buu ilaahay amarsi sida nabi Muuse la ushaadi ku dhufo ushiibu ku isticmaalay ushanina waxa weeyaan mid hababka loo isticmaalay kala duwan to mar birish baa laga dhigaya waa taabada laga gudbay marka lana riig bay noqonaysaa oo dhulka lagu qodayaa oo inaga arki doona dhagaxaanta biyaha ilaahay uu kaga soo shubayo marka kalena abeesay isu rogaysaa oo cadowga ayaa ay waajahaysaa oo laga hortagaya awoodda ilaahay way subxaanahu wa ta'aala waxba ku adkaanayna wax laba u dhib yar yihiin فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إذن كوانوا إذن نبدقلين فرعون يقول لدي سينا ولا هلاقي ولا هفيي إذن كو إيغي وأنتم تنظرون أودي الله وإركيا وحكريتها قنعين بيت هذه يتشاردتك وحكومة يستأما وحلايا مركي راقان دتك وحي مودان بينو إلهي هايبا وقاربا لعابو دايبا muddaday dadka maamulayaan ay dheeraatay ayaa la iska caabuday walay kan mid bani aadam ba ma hawaaba ilaahayba marka waxa laga yaabaa dadka qaarkood fircoon baa dhintay inay u qaadan waayaanba wa antum tanzuruun waati baqtigiisi banaanka loo soo dhigay laakiin culamaadu tafsiir waxay u badan yihiin inaanu ahraamtan imika kuwan meelahan xabaalahan waaweyn ee Masar hadiya jeer qolfoofkan ay
dadku ku dalxiisaan la soo eegeega Masar ay haysato inaanu fircoonkii ahayn beriga ereyga fircoonna waxa loo yaqaanay dadka Masar xukuumada madaxda ka ahaa Kisraana waxa loo yaqaanay kuwa xukuma reer Faris Qaysarna waxa loo yaqaanay reer Room ama Romanka cidii madaxdii xukumi jirtay xabashida xidda xukumi jirtayna waxa loo yaqaanay Najaash marka fircoonkii waqtigaas ma ahay fircoon marka muddo waqtigiisu yaala meeshu ka baxay dadkii waqtigaa joogun buu aayadu ahaa وإذ وعدنا وحستان وإذ وعدنا مركي آنو لبلني موسى نبي موسى لبلني بيقول هيدي 40 ليلة أفرتن هبين بعد 40 ليلة أو في 40 ليلة أما أفرتن هبين لحظات ثم اتخذتم العجل دبي جيبا سميستين من بعده أنت وإذن كتجي كذب وأنتم ظالمون إذن كظلم السمينية ثم عفونا عنكم وأنو إذن كرافنا وإذن كسامحنا إذنك من بعد ذلك أنت قال لماذا سميستين لعلكم تشكرون سيا إله يقول ما هذا نقضان وإذ وقت حس آتينا موسى نبي موسى وحنسين الكتاب والفرقان كتاب كي توراة يو أحكامتي حقية بعض الكلاساريس لعلكم تهتدون السئة وهنمتان وحا إلهي سبحانه وتعالى وقم نشيغنا يا ديغدو سميه ومركو عدوغي كبد باديي علمي سماوي هنا والله قدري كعدوغي ولا كبد باديي يا علمي ولا سيي يا ديقها إن أركي دونا أريغا إذنا وظرف لما مضى من الزمان وأري الله استعماله وقتك تجيب الله استعماله وحنا هذه شر كسينا يا موقالك وحي هراء موقالك وحي هراء لو صوب بندقة ياو بالحالة ده دي بحسوسة بالحالة ده دي بوريسة بالحالة ده كل عبرة قاضي بركي صوبت بعدين تهدد كوالا قوميستو مركز الدين الآن بكل عضاء وحول بوالا قدر كي هذه شر استعبادك ومضاها marka la adoonsado waxyaabaha aad u saameeyana waxa kamid ah aqligana umada uu ka xumeeyaa cilmigana uu ka xumeeyaa labadaas ay isu raaca marka si ay aqligiina uga xoroobaan cilmigiina uu u hogaamiyo nabi Muuse ballan Ilaahay uu qabtay oo waxa loo soo dhiibayaa waxyigii baa loo soo dhiibayaa afartan buu ka maqnaado Ilaahay wuxuu qabtay 30 cisho haddana 10 lagu daray 40 layla inkastoo quraan halkan lafdiga layla habeen buu quraanku tilmaamay culimadu waxay leeyihiin xagga marka laga islaamka habeenkii maalinta habeenka asala sida daraadeed bay haboonta markaynu wax tirinayno inaynaan maalintii ka bilaabin aynu habeenkii ka bilowno oo waxa lagu xisaabtamay haday xaj tahay haday ramadaan tahay haday waqti tahayba habeenka asala maalinkuna waa tabac oo la socda waxayna wareeriyeen markay isku afkaran lahayd dadkeena dabadaha iyo meelaha ka soo dhacay maalinkii baabayn isku fahmi laanay maalinka salaasada haduu ku raado ama salaasada haduu qofkaas ku raado ma habeenka la socda way isweydaaranaysa wuxuu u jeedaa qofkaas maalinka salaasada iyo habeenka ay soo galaysa arbacado marka adiga hadaa timaado habeenka salaasaad horaad uga soo dhacday bay ka dhiganta marka waxa lagu xisaabtama habeenka asala maalinkuna uu raacaya afartanka habeen kadib inuu yimaado kadibna towraad loo dhiiba intuu maqnaa ayay dibi samaysteen dad walba waxa ka soo dhaxbaxa qaar horumarkooda diin iyo dunyaba dumiya oo dhulbiisa Muuse Saamiri baa ka soo baxay oo qoladan kamid ahaa oo mufsidaha de quraanka aad u sharxay sida uu ugu sawiray iyo sidoo u qiranayayba almuhim waxa ay kamid ahay taasina abaal la'aantoodii iyo ceebahoodii iyo degdegoodii iyo adab darrada Ilaahay iyo rasuushiisa kala hor ibanayeen وهذا ما أقوله والله سبحانه وتعالى أعلم